السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا meel kastoo dunida ka joogtaan waa channelkeeni daadihinta warka fadlan hadal ku cusub tahay bas booqashada koobaad tahay waxaan ka codsanaa inaad subscribe saarto kabalkana furato si ay kuu soo gaaraan fiidiyoda xiisaha badan ee halkan soo dhigno gabi ahaanba social media ilaa shalay talo waxaa haysa qaraxii ka dhacay xeebta Lido qaraxaas oo sababay dhimasho dhaawac ilaa hadda ila wareeriye sheegaya inay dhimashadu gaadhaysay 27 ruux inta kale ku dhaawacmayna waxaa la sheegay inay 50 ruux ahaayeen dadkii ku dhaawacmay waxaa la sheegay in uu ka mid yahay fanaanka caanka ah ee Sharma Boy fanaanka haatan waxaan dhigaynaa waa fanaanka u haysta raabka inkastoo heesiisu aad u haystaan baraha bulshada ee TikTok-da inkastoo wararkaas aan saas u hubin wararka kale la sheegayna waxaa ka mid ah Muuse oo sawirkiisa caan ku noqday baraha bulshada ee Facebook ayaa la sheegayaa inuu isna dhaawac ku dhaawacmay waxaa ilaahay ka barnaa dadka dhintay ilaahay samiri iimaan qoyskii qaraabada ay ka baxeen ilaahay ka siiyo dadka dhaawacana ilaahay waxaan ka barnaa inuu caafimaadkooda siiyo wadankeena Soomaaliya ayaa qaraxyo badan mar walba ka dhacaan ilaahay waxaan wadiinaa inuu ilaahay qaraxyada ugu bedelo nabad iyo nolol wacan falan walaal adna waxaad ugu soo duceysaa dadkii dhintay dadka xanuunsan ee wadanka Soomaaliya commentiga adigoo maasan fiidiyogan like saar siina share garee